ka dhacaya dunida dacaladeeda intaba waxa diyaar idin la ah oo aad ka heli kartaan bogga internetka ee www.safifilms.com walaalayaal iyo wixii dhakahayo lama marti sharafta halkan isku timid horta waan salaamina salaan kadib isbitaalkan maanta waxaan ugu talagalnay inaas furo Sultan Bano Bartabsin codsiya soo jeedisti waxaas dhaay aniga waxaan leeyahay shir odayeed markaan ku u tixgeliyeen codsigiisa idinkana waxaan sheegaynaa inaad karaali ahaatiin suldaanka sidaas darteed waxaa maanta noo fura wiilkiis oo sawawa mudanayaal iyo marweyn aad iyo aad u mahadsantiin maadaama aad xafladan ka soo qayb gasheen sida hore leen kugu sheegay runtii aabbe wuu ku riyo jiray isbitaalkan in uu dhis laakiin way rumoowaysa riyadiisa balse waxaan idin sheegayaa oo aan hubaa aabbe shaqo walba oo tallaabo qaado in uu samay jiray mid kale oo guriga aniga laga soo buriyay rumaantii aabbe aniga guriga ma soo burin laakiin anaan ayay ahayd asigoo ugu tala galay aniga in aan karti yeesho farahaaga far ka mid ah haddii nabar uu kaa gaaro runtii xanuunkuba dareemaysaa anigii aabbe hoogaa wax yar ayaan kala fognahay sidaasay tahana qof walbaba xanuunka meesha uu joogo ayuu ka dareemayaa marka kalama maarano waxaan kale idin sheegayaa maahmaayaha waxaa jirta dhagax aan buruska karin inaan dhisma aan lagu geli karin waxaa kaloo jirta geed hadduu iska weynaado miro iyo dhacaan midna aan oola lahayn wax faa'iida oo leeyahay haba yaraatee malaha waxaase xal ma laha laakiin waalidka canaantiisa xal waa leedahay waayo ubadka ay dhaleen ayay waxay u tahay canaan horumarna way u tahay waalid walbana wuxuu jecel yahay ubadkooda inay horumar gaaraan ani aabbe aad ayuu ii jecel yahay haddii oo ogaado ani inaan qaladkayga aqirtay asiga wuu imaan lahaa waayo wiil iyo waalid ma kala maarmaan xalfad weyn ayaa la dhigay dad tiro badan ayaa ka soo qayb galay waan la amaanay waan loo sacbinay xagee ka hadlaysaa adii xalfadda isbitaalkan ka hadlay waa isbitaalka dimaatay maya naag dariskii saaxiibtay ayaa ii sheegtay sida adiga u qudbeen jirtay ayuu asagana u qudbeenay weliba wuxuu yiri heerka aniga maanta aan gaarsiisanahay aabbe ayaa soo gaarsiiyay isbitaalkan aniga aan dhisana aabbe ducadiisa ayaan ku dhisay wuxuu kaloo sheegay mahmaayo dhagax iyo geed iyo dhacaan waxyaalahaas ayuu ka sheekeynaya isaga buris wax le oo isku dardaray ilaa haddana naasud sida maahe anaa kuu sheegay wuxuu yiri aanu malaynayaa sida aan maqlay hadda mahmaayadada aan kala dhaminayo buriska dhagaxa oonan karin dhismo ma lagu geli karo geed haddoonan dhacaan lahayn ama miro lahaynna wax faa'iida oo leeyahay laa walaa ba oo yahay malaha soo sidaas ma ahayn hadalladu dhahay bas wax kala jira intaas leewahay no intaad ka maqashay adiga maxaa caadi waay taas maamaayo hore weeyaan waa qadiim
maayda cusub warkali maxaa sidaan igu fiirinaysaa adiga waxaan la yaabanahay mahmaada sidaad u xasuustay adiga war dadkoo dhan baa sheegay maxaa xusuusad dadkan ka maqlaanay saas miya aniga waxaan u maleynayaa inaad meeshaas tagtay waa tanaa cimaamadaada geed meesha ku yaal ayay saarneed macquul ma waxaa laga yaabaa cimaamada inay lugaysay ay meesha tagtay ilaa waqtiga wuu isbedelay adiga waad ogtahay